Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Halkani waa Baahin News. Qodobada wararka aan idin hayno waxaa ugu waaweyn. Diblomaasi sare oo Mareykan ah oo booqasho kale bariga dhexe uga bilaabanayso iyadoo uu doonayo in heshiis xabad joojin ah laga hirgeliyo dalka Israel iyadoo uu jiro dagaalka Gaza. Booliska dalka Turkiga oo dilay laba qof oo ka mid ah dadkii weerarka ku qaaday maxkamad ku taala magaalada Istanbul. Iyo Ruushka iyo Shiinaha oo Mareykanka ku dhaleeceeyay duqeymaha bariga dhexe. Qodobada iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa wararka warbixinada iyo xogihii ugu dambeeyay ee caalamka. Aynu ku horeyno xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa socdaalkiisii shanaad gobolka bariga dhexe ku tagay magaalada gaar ahaan dalka Masar tan iyo bishii Oktoobar sanadkii hore isagoo ujeedku ahaa in gogol xaar uu sameeyo heshiis dhexmara Israel iyo Hamas iyadoo dagaalka Gaza uu sii xoogeysanayo. Blinken ayaa salaasadii lagu waday in uu la kulmo dhexdhexaadiyaasha reer Masar kuwa oo ay wehelinayaan dhigooda wadamada Carabta waxaana ay isku dayeen in ay meel dhigaan heshiis lagu soo afjarayo dagaalka ba'an oo ay ku dhinteen in ka badan 27,500 qofood oo Falastiiniyiin ah kuwaasi oo u badan haween iyo caruur. Inta badan dagaalka waxa ku hobtay 2.3 milyan oo qofood oo ku barakacay iyagoo wajahayo cunno yari daran, biyo la'aan, dawo iyo hoy la'aan iyadoo inta badan Gaza ay hadda burburtay kadib ku dhawaad 4 bilood oo duqeymaha Israel. Mareykanka, Masar iyo Qatar ayaa ka shaqeynaya heshiis lagu joojinayo dagaalka Gaza isla markaana suurtagelinaya in maxaabiista Israel ee Hamas iyo maxaabiista Falastiiniyiinta ee ku jira xabsiyada in la isdhaafsado. Si kastaba haatee waxaa lagu soo waramayaa in Israel iyo Hamas ay ku kala fog yihiin inay ku heshiiyaan shuruudaha. Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in Blinken uu rajeynayo Qaahira kadibna uu gaarayo Doha si uu u helo war ku saabsan jawaabta Hamas ee heshiiska la soo jeediyay. Waxa uu safri doonaa sidoo kale Israel si uu warbixin uga siiyo ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu amuurahaasi. Si kastaba haatee Blinken waxa uu wajahayaa cadaadis xagga xurgufta dhinaca diblomaasiyadeed ee gobolka oo ku qasbaysa in safaro tiro badan uu ku gaaro gobolka bariga dhexe mid la mid ah midka bishii hore uu ku tagay kaasi oo uu soo saaray natiijooyin la taaban karo haddii ay jiraan warbixino kale oo amuurahaasi ku saabsanna waa uu inoo soo gudbin doonaa. Waxay sidoo kale kusoo beegmaysaa iyadoo ay jirto hadallo ka soo baxay Israel oo ah in ay qorsheynayaan in ay ballaariyaan weerarada dhulka ay ka geysanayaan Gaza iyagoo ku adkeysanaya in aanay ka dayn doonin cududooda military goob kasta oo Falastiin ay ku sugan tahay gaar ahaan Hamas inkastoo ay ku andacoonayaan in ay ku fashilmeen hadafkii ay ka lahaayeen burburinta Hamas. Israel waxay sheegtay in ay qorsheynayso in ay u guurto Rafah inkastoo dadka intiisa badan lagu qasbay in ay u qaxaan magaalada oo fadhida xadka Masar. Kormeerayaasha bini'aadanimada ee qaramada midoobay ayaa ka digay in amarada dadgureynta Israel ay hadda daboolayaan 3/2 meel dhulka Gaza oo kumanaan qof oo dheeraad ah loo wado maalin kasta aagga xadka. Masar ayaa ka digtay in soo gelitaanka Israel ee xuduudda ay heshiis gelin doonto heshiiskii nabadeed ay labadan wadan saxiixdeen in ka badan 40 sano ka hor. Masar waxa ay ka cabsi qabtaa in dagaalka uu ku ballaariyo aagga Rafah in sidoo kale ku qasbo dadka rayidka ee Falastiin ee argagaxa wajahaya dhinaca soodinta. Xaaladda Masar ay sheegtay mid ku qasbi karto in ay ka go'an tahay in ay ka hortagto. Imaatinka diblomaasiga reer Mareykan ee Qaahira ayaa kusoo beegmaya maalin uun kadib markii uu magaalada Rafah kula kulmay dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan. Sacuudi Carabiya ayaa sheegtay in ay weli xiiseynayso sidii ay caadadii ula yeelan lahayd Israel balse waxa haddii ay jirto qariidad la isku haleyn karo oo lagu abuurayo dowlad Falastiina. Waaxda arrimaha dibadda ayaa sheegtay in laba qof ay ka wada hadleen isu dubidda gobolka si loo gaaro dhamaadka heshiis waaro dhinaca Gaza. Blinken iyo Maxamed bin Salmaan ayaa sidoo kale ka hadlay baahiyaha bini'aadanimo ee Gaza iyo weerarada xuutiyiinta maraakiibta xiriirka la leh Israel iyo maraakiibta dagaalka ee Mareykanka iyo boqortooyada Ingiriiska ee kooxda Yemen ee xulafada la ah Iran ay sheegtay in laga gol leeyahay joojinta dagaalka iyo sidii gargaar dheeraad loo gaarsiin lahaa Falastiin. Waxa uu booqan doonaa Qatar gelinka dambe salaasada si uu wadahadal dheeraad ah ula yeesho Amir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani iyadoo ay socdaan dadaalada lagu xoojinayo heshiis nabadeed
kulamadan ay kusoo beegmay wax yarun kadib markii maraykanka uu tobanaan weerar lagu hoobtay uu ka fuliyey ciraaq iyo suuriya si uu uga arguto 3 askari oo maraykan oo lagu dilay weerar diyaaradeed oo ka dhacay waqooyiga urdun. shiinaha, ruushka iyo iiraan ayaa ku cambaareeyay washington weeraradaas intii lagu guda jiray shir degdeg ah oo golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu yeeshay goor dambe isniintii shalay. blinken waxa uu joogi doonaa israel arbacada britole ah si uu la kulmo netanyahu iyo madaxda kale ee ugu sarreysa israel ka hor inta uusan gaarin dhulka falastiiniyiinta la haysta ee daanta galbeed. wasaaradda arrimaha dibadda ee falastiin iyo janiibta warbaahinta ayaa bayaan ay soo saartay salaasadii ku sheegtay in israel ay soo dhoweyneyso blinken iyadoo ay sii kordhayso dembiyada ay ku hayso rayidka falastiin oo ay had iyo jeeraale ku xadgudbayso. blinken ayaa ku wajahan israel iyadoo ay jiraan warar ay warbaahinta maraykanka soo tabinaysa oo sheegayaan madaxweyne joe biden oo ka carooday ra-iisul wasaaraha israel ee ku aadan ka go-itaankiisa washington ee arrimaha muhiimka ee ku saabsan dagaalka iyo mustaqbalka gobolka. netanyahu ayaa sheegay in uu weli doonayo guul guud oo ka gaaro xamaas oo uu wiiqo xal laba dowladood halka saraakiisha sare ee israel ay wadaan qorshayaal ay ku doonayaan in ay ku kala wareegaan marinka Gaza ayna ka dhistaan duqeymo amaba deegaameyn sharci darro ah. raalli ahada xulafada midigta fog ee netanyahu ayaa uga digay cawaaqib xumo siyaasadeed haddii uu heshiis daciifa la galo xamaas. dhinaca kale falastiiniyiinta ku sugan daanta galbeed la haysto ayaa waxaa maalin walba ay la kulmaan weerar gacanka hadal iyo dil oo ay geysanayaan ciidamada israel. wadaxaajoodada heshiiska ayaa waxaa ka mid ah in la joojiyo dagaalka muddo toddobaadyo ah halkaasi oo xamaas iyo israel ay ku sameyn doonaan maxaabiis kale oo isdhaafsi ay sameyn doonaan. xaaladda bini'aadanimo ee aada u daran oo laga soo sheegayo gobolkaasi Gaza sida laga soo xigtay qaramada midoobay israel waxay si weyn u carqaladeynaysaa qulqulka gargaarka ee dhulka go'doosan halkaas oo inta badan 2.3 milyan oo qof ay wajahayaan macluul ayuuna baahan gargaar bini'aadanimo. xafiiska qaramada midoobay ee isku xirka arrimaha bini'aadanimada ayaa salaasadii sheegay in amarada dadgureynta israel ay hadda ka hortagayaan 3 meelood 2 meel marinka Gaza taasi oo ay saameysay aag ay ku nool yihiin 77% dadweynaha falastiiniyiinta ku nool deegaanka go'doosan ayaa waxay wajahayaan xaalado aad u daran oo ay u dheer tahay bambaanooyinka israel ee soo dhacaya kuwaasoo sidoo kale ay sheegtay qaramada midoobay inay ka mid yihiin biyo yaraan dari ama biyo yari daran iyo cunno yari iyo daawo yari oo ay weheliso cudurro aad u faafaya. hay-addu waxay sheegtay in dadka cusub ee soo barakacay heli jireen 1.5 ilaa 2 litir oo biyo ah maalinkii si ay u cabaan waxaana ugu karsadaan uguna dhaqdaan dharka. waxayna tilmaamtay in ay si weyn u kordheen kiisaska shuban biyoodka ee wajahaya caruurta reer falastiin. falastiiniyiinta ku sugan marinka Gaza ayaa sheegay inay rajeynayaan in booqashada blinken ee gobolka ay ka hortegi doonto dagaalkan ama ay hakin doonto iyadoo dadka barakacay wajahayaan weeraro aad u tiro badan. booliska turkiga ayaa dilay 2 qof oo lagu eedeeyay inay weerareen maxkamad ku taalla istanbul taasi oo mas'uuliyiinta ay ku tilmaameen fal argagixiso ah. dhacdadan subaxnimadii salaasada iyo sidoo kale la xaqiijiyay 6 qof oo dhaawac ah oo ay ku jiraan 3 sarkaal oo boolis ah sida ay sheegeen saraakiisha iyagoo ku eedeeyay kooxda hubeysan ee bidixda xisbiga kacaanka ee xoreynta shacabka. wasiirka arrimaha gudaha ee turkiga ayaa sheegay in ragga toogashada geystay lagu dilay dagaal kadib markii ay rasaas ku fureen bar kontarool oo ku dhow maxkamadda caglayeen ee istanbul. eedeysanayaasha nin iyo naag magacyadooda lagu kala sheegay AEY iyo BB ayaa lagu eedeeyay in ay ka tirsan yihiin ururkaasi oo ka diiwaan gashan koox argagixiso gudaha turkiga. ururkan waxa ay wadeen olole ka dhana dowladda turkiga tan iyo sanadii 1980yadii. muuqaalo laga soo qaaday goobta uu falka ka dhacay kadib ayaa muujinaya ciidamo aad u badan oo ku sugan afaafka hore ee maxkamadda waxaana xiran goobaha laga soo galo iyo kuwa ka baxo. wasiirka cadaaladda ayaa sheegay in dacwad-oogayaasha ay bilaabeen baaritaan ku aadan weerarkaasi. weerarkan ayaa ahaa kii ugu dambeeyay lagu qaado turkiga iyadoo dagaalka Gaza uu xiisad ka taagan yahay ama uu ka abuurayo bariga dhexe waxayna si dhow ula socotaa dhowr weerar oo ay wajahayso hubeysan oo ka dhacay gudaha turkiga. dableyda inta badan
loogu magacdaray ISIS ayaa weeraray kaniisad ku taal Istanbul bishii hore intii lagu guda jiray Axaddii, waxayna ay dileen hal qof. Ciidamada ayaa tan iyo markaasi xiray dad badan oo looga shakisan yahay in ay ku lug lahayeen weerarkan ama xiriirka ay la lahayeen kooxda hubeysan ee loo yaqaano Kurdistan Workers Party ee PKK, oo sidoo kale waday ololo dhiig badan oo ku daatay oo ka dhan ah dowladda Turkiga muddo 10 sano ayaa weerar ismidaamin ah ku qaaday dhismaha wasaaradda arrimaha gudaha ee caasimadda Ankara bishii Oktoobar. Maamulka ayaa ka falceliyay duqeymo ay ku garaaceen fariisimaha Kurdiyiinta ee waqooyiga Ciraaq, waxaana tan iyo xilligaasi ay xidheen boqolaal la sheegay inay xiriir la lahayeen kooxaha Kurdiyiinta. waxaanu ku soo koobaynaa wararkeena. Ruushka iyo Shiinaha iyo Mareykanka ku dhaleeceeyay duqeymo dhanka cirka oo uu dhowaan ka fuliyay Ciraaq iyo Suuriya. Labada dal ayaa ku eedeeyay Washington in ay sare u qaadayso khatarta gobolka ka dhalan karta. Shir uu yeeshay golaha ammaanka ee qaramada midoobay gelinkii dambe ee Isniinta, Moscow ayaa sidoo kale sheegtay in go'aanka Mareykanka uu ka qaaday weeraro uu la xidhiidho doorashada madaxtinimada ee soo socota November. Ruushka oo duulaankiisa Ukraine ahaa mowduuc dood qaraar ah ka abuuray hay'adda qaramada midoobay ee arrimaha amniga ama golaha amniga ee Jimciyadda Quruumaha ka dhexeysa 2 sano ee lasoo dhaafay, waxaana ay codsadeen kulan golaha kadib markii Mareykanka uu bilaabay 10 weerar oo ka dhan ah bartilmaameedyada Ciraaq iyo sidoo kale Suuriya ee Iran. Weeraradan ayaa daba socday weerar ay diyaaradahan duuliyaha lahayn ay ku qaadeen saldhigga ciidamada Mareykanka ay ku leeyihiin dalka Urdun oo ay ku dhinteen 3 askari. Safiirka qaramada midoobay ee Moscow ayaa ku eedeeyay in weeraradan ay ahaayeen isku day uu Mareykanka ku doonayay in uu dhinaca kale ugu eego bal waxa uu ka yeeli doono amuurahaasi. Weeraradan oo ay ku dhinteen dhowr iyo 10 qof oo ay ku jiraan dad rayid ayaa muujinaya sida ay Washington u ixtiraami lahayd sharciga caalamiga ayaa lagu yiri warbixintaasi. Waxaa sidoo kale lagu eedeeyay Mareykanka inuu doonayo inuu soo jiido quwadaha bariga dhexe oo ay ku jirto Iran in uu geliyo colaadda gobolka. Xulafada Suuriya iyo ku biirtay Ruushka iyagoo farta ku fiiqay siyaasadda gudaha ee Mareykanka oo ay sabab u tahay weeraradaasi. Guud ahaan intaa waxaan kusoo koobayaa wararkii ugu waaweynaa ee caalamka oo aynu halkan idinkugu soo gudbinaynay. Inta aynu warar la mid ah aynu dib dambe halkan ugu kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa in aad subscribe inoo soo saartaan channelkan, like gareysaan muuqaalka.